Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal halkan waa warbaahinta xogta dalka. Qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxa ugu waaweyn howlgallo xoogan oo ciidamada amniga maamul goboleedka Puntland ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dowrka ay madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ku lahaayeen shirkii magaalada Garowe oo aad loo dhaliilay xilli saddexda madax maamul goboleed ee kala la qorsheenayo in kulan uga furmo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo soo afjaray socdaalkii Garowe uu ku tagay isla markaana uu kaga soo qayb galay shirkii fashilmay dibna ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. imtixaanaad ka midaysan oo qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo galay maalintii saddexaad xilli la dhaliilayo in imtixaanaadku ay noqdeen kuwo lagu kala iibsanayo suuqyada magaalada. injineer Turki ahaa oo shaqo u joogay magaalada Muqdisho uu ku geeriyooday gaarigiisa qarax loogu xiray oo ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan ee warka xogta dalka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah weerar ay ku geeriyoodeen 6 ruux oo lagu qaaday kaniisad ku taala dalka Burkina Faso iyo madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani oo mar kale ka deeriyay xaaladaha cadaadis ee soo food saaray dalkiisa. markale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa xogta dalka. u diyaar garooba qodobadii aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay howlgallo xoogan ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. wararka inaga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamada amniga maamul goboleedka Puntland howlgallo xoogan ay ka sameeyeen halkaasi isla markaana sida la sheegay lagu baadi goobay dad looga shakisan yahay inay ku howlan yihiin qalqalgelin amni. waxaa la sheegay in ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ay guri u baarayeen xaafadaha ku yaala guud ahaan magaalada Boosaaso isla markaana ay soo ururiyeen dhalinyaro fara badan oo ku dhaqnaa magaaladaas ayna isugu keeneen hal goob halkaas oo ay ku kala saareen, iyadoo sida la sheegay inta badan dhalinyarada dib u siiyay xorriyadooda halka kuwo kale oo fari ku tirisna xabsiga u taxaabay. ciidamada amniga iyo sidoo kale laamaha amniga ee maamulka Puntland ayaa ilaa iyo haatan wax faahfaahin ka bixin howlgallada iyo sidoo kale dadka lagu soo qabqabtay asaatee howlgallada Boosaaso ka dhaca ayaa ku soo aadaya iyadoo amniga magaalada Boosaaso uusan caga buuran ku taagnay muddooyinkii dambe isla markaana tan iyo markii halkaasi lagu dilay madaxii shirkadda DP World ay magaalada Boosaaso noqotay mid u nugul dilalka iyo faralka kale ee lidiga amniga ku ah oo ka dhacaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. dhanka kalena dowrka ay madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ku lahaayeen shirkii magaalada Garowe ayaa aad loo dhaliilay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen iyo dhigiisa Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa aad loogu dhaliilay inaysan dowr ku lahayn shirkii ka qabsoomay magaalada Garowe dhawaan kaas oo fashilmay isla markaana u dhaxeeyay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa sida la sheegay waxa aad aysan kaga muuqan shirkii ka dhacay Garowe, iyadoo sidoo kalena la tilmaamay in madaxda aysan jirin wax soo jeedimo ay sameeyeen. inkastoo shirkii Garowe ku soo dhamaaday fashil iyo heshiis la'aan, haddana waxaa su'aal ka taagan tahay doorkii ay shirkaasi ku qaateen guul iyo guul darraba madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. xubno ka qaybgalay shirkii Garowe ayaa xaqiijiyay in labada madaxweyne aysan door ka qaadan shirkaasi arrimihii looga hadlayay oo dooda ugu badnaa ay dhexmartay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, kan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kan Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxda dowladda dhexe. 5 maalmood oo shirar gaar ay ku jireen madaxweynaha Puntland, kan Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug, kuwaas looga hadlayay khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ayaa la sheegay inaysan ka qayb qaadan kan Hirshabelle iyo kan Koonfur Galbeed. markii loo gudbay qodobada arrimaha dib u eegista dastuurka xeerka doorashooyinka iyo deeqaha beesha caalamka ee siisa Soomaaliya, waxaa marna dooda ku saabsan qaybahaasi ka qayb qaadan madaxweynaha Hirshabelle iyo kan Koonfur Galbeed sida ila hoose ay xaqiijiyeen.
qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed uu kaga lumay waqti joogitaanka magaalada Garowe isla markaana ay habooneedba inaysan shirka ka qayb qaadan maadaama aysan door buuxda ka qaadan shirkii ka qabsoomay Garowe. shirkii ka dhacay magaalada Garowe ayaa lagu kala tagay wejigabax iyo isfaham la'aan isaga oo shirkaasi soconayay in ka badan 7 maalmood aysan jirin wax heshiis iyo sidoo kale xal ah oo laga gaaray khilaafka soo noqnoqda ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. isla arinta shirkaasi ayaan ku guda jirnay madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa lagu wadaa in shir gaar ah uu kaga furmo magaalada Nairobi oo caasimad u ah dalkaasi Kenya. sida la xaqiijiyay waxaa la soo warinayaa in magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya uu ka furmi doono shir ay ka qayb qaadanayaan beesha caalamka isla markaana ay goobjoog noqon doonaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. madaxda Jubbaland, Galmudug iyo Puntland ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay beesha caalamka kula shiraan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu wadaa inay u ambabaxaan magaalada Nairobi waxaana hadda halkaasi ku sugan isla markaana goor horeba sii gaaray kan Galmudug. kulanka ayaa waxaa martigeliyay beesha caalamka waxaana looga hadli doonaa khilaafka dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. waxaana kulanka kusoo beegmaya iyadoo shir fashilmay isla markaana aan wax natiijo ah kasoo bixin uu kusoo gabagaboobmay magaalada Garowe halkaas oo uu ka qabsoomay shirka balse guud ahaanba la isku afgaran waayay. iyadoo taasi ay jirtana waxaa dib Muqdisho ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib shirkii fashilmay ee ka qabsoomay magaalada Garowe. wafdi heer sare uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay Muqdisho iyagoo halkaasina si weyn loogu soo dhaweeyay. wafdiga madaxweynaha ayaana kasoo qayb qaatay shir qaatay 7 maalmood oo ka dhacay magaalada Garowe isla markaana u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe walow ugu dambeyn shirkaasi la isku afgaran waayay isla markaana lagu kala tagay. waa tahay saaxiibayaal wili waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka iyadoo qaybihii dhexe ee warkeenana ku guda jirno markan. iyadoo maalintii saddexaad uu galay imtixaanka mideysan oo qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka qayb qaadanayaan arday sare u dhaafaysa 31,500 oo arday oo ka qalin jabinaya dugsiyada gobolka Banaadir iyo kuwa gobolada dalka ayaa haddana waxaa la sheegayaa in imtixaanaadkaasi ay qaadaysa wasaaraddu ay noqdeen kuwo fashilmay isla markaana lagu kala iibsanayo suuqyo madow. sida aan ila hoose ku helnay imtixaanaadka ayaa soo dhacay isla markaana la soo diraa xilliyada habeenkii. ardayda ayaana noqday kuwa goor horeba iska sii helay imtixaanaadka isla markaana ka sii shaqeysta kadibna imtixaanaadka u fariista. taasi ayaa la sheegayaa in wejigabax iyo fashil ay ku tahay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo horey wacd ugu martay inay ka diyaar garowday isla markaana ay u diyaar garowday sidii ardayda ay imtixaanaad mideysan oo aysan lahayn wax qish ah lagana heli karin suuqyada ay ka qaadi doonto. waxaa la sheegayaa in wasiirkii wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre haatan uusan dalka joogin isla markaana dalka dibadiisa uu ku maqan yahay waxaana imtixaanaadka ay noqdeenba kuwo fashilmay ardayduna ay suuqyo madow ku kala iibsanayaan. waalidiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa arintaas ku tilmaamay wejigabax iyo hoos u dhac ku imaanaysa tacliinta iyo waxbarashada ardayda Soomaaliyeed kuwaas oo filanaya in imtixaan mideysan laga qaado. qaarkood oo hiigsanaya kaalmaha ugu sareeya ayaa malaysan in iyaga oo dadaal iyo sidoo kale juhdi dheer iyo bixiyo waxna soo bartay ay ka dulmari karaan arday kale oo qishash helay isla markaana imtixaanaadka si fudud kaga baasi kara kaalmaha ugu horeeyana ka gali kara. waa sanad kale oo xiriir oo qaadaysa wasaaradda waxbarashada imtixaanaadka mideysan isla markaana guud ahaanba imtixaanaadkaas ay noqdeen kuwo fashilma suuqyada madowna lagu kala iibsaday iyadoo haatan wax la iska weydiinayo sababaha looga gudbilayahay imtixaanaadku ay noqdaan kuwo aad looga foojignaado suuqyada Muqdishona aan laga heli karin. qaybaha dambe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaan ku sii siqeynaa markan. injineer Turki ah oo howlo shaqo u joogay magaalada Muqdisho ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay caasimadda. waxaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay agagaarka isgoyska Taleex iyo kan kiiloomitir 4 inta u dhaxaysa wadada Maka al Mukarrama ee Muqdisho.
qaraxa oo ahaa nooca dajiska oo lagu xiray gaari Hilux ah ayaa waxa uu haleelay gaari uu watay injineer Turki ah iyadoo si gaarana gaariga ugu qarxay kasoo horjeedka jaamacadda City ee Muqdisho. qaraxa oo ahaa mid xoogan lagana maqlay inta badan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ayaa dhaawac wuxuu kasoo gaaray injineerka oo u dhashay dalka Turkiga iyo wiil Soomaaliya, balse waxaa la sheegay in ugu dambeyn uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray xilli la geeyay cusbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. qarax ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo uu kooban ka hor isla jaamacadda City afaafkoodii hore uu ka dhacay qarax kan lacayna oo gaari lagu soo xiray, waxaana bisha Ramadaan yaraaday qaraxyada iyo falalka kale ee lidiga ku amniga oo ka dhacaya caasimadda, walow haatan ay muuqdaan qaraxyo soo noqnoqonaya oo ka dhacaya caasimadda Muqdisho. saaxiibayaal, akhbaraadka Soomaalida ayaan intaas kaga gudbayno oo aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka. iminkana akhbaraadka dibadda. ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyooday toogasho ka dhacday kaniisad ku taala dalkaasi Burkina Faso. 6 ruux oo ku jira baadir ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kaniisad Kaatooliga ah oo ku taala waqooyiga dalka Burkina Faso. weerarkan ayaa qayb ka ah mowjado weerar ah oo kooxo mintidiin Islaamiyiin ka fulinayaan gudaha dalkaasi. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in dhowr dabley ah oo ka socday amaba ku socday mootooyin ay tageen afaafka hore ee kaniisadda. saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in kooxda falkaas geysatay ay markii dambe dab qabadsiiyeen dukaamo badan oo ku yaala deegaanka la yiraahdo Dablo oo ka tirsan gobolka Sanamatika ee dhinaca waqooyiga dalka Burkina Faso. tan iyo 2015 kooxaha mintidiinta Islaamiyiinta ayaa ku dhawaad 400 oo ruux ku dilay dalka Burkina Faso, iyadoo xaaladda amni darro ee dalkaasi ay u muuqato mid faraha ka sii baxaysa. saaxiibayaal, guud ahaan qodobkaasi dibadda ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka. saaxiibadeena si wararkeena iyo warbixinadeena ay durba u helaan waxay si fudud u saari karaan subscribe kanalkan. tani kulanti dambe saaxiibayaal, intaan dib u kulmi doono waxaan idin leeyahay amaana Allah. nabadgelyo nooli kulante.